wiilka Ma'muun al-Cabbaasi, wiilka khaliifada muslimiinta. Wuxuu ku noolaa qasri ku yaala Baghdad. Wuxuu ahaa qof uu Allah ugu manaystay lacag, xoolo, hanti, fiddo, shaqaale iyo maal aad u badan. Meeqa masaakiin ah ayaa ku haminaysa in ay noloshaas helaan. Meeqa fuqaro ah ayaa rajaynaysa in ay faqriga ka baxaan, sababtoo ah kuma qanacsana risqiga uu Ilaahay u qoray. Wuxuu ahaa wiilka khaliifada mid maalin walba jooga qasriga, wuxuuna furi jiray dariishada si uu uga daawado webiga Dijla, dadka, suuqa iyo sugleedaba. Iyaga ayuuna daawan jiray. Inkastoo uu qasri ku noolaay, haddana wuxuu dareemi jiray camal la'aan iyo caajis. Wuxuu dareemi jiray ciriiri, wuxuu dareemi jiray murugo, wuxuu dareemi jiray hammi. Wuxuu haystay wax walba uu u baahnaa, laakiin farxad muusan haysan. Wuxuu haystay xoolo aad u badan, laakiin dhoola caddayn muusan haysan. Wuxuuna ku sugnaa xaaladaas maalin walba. Laakiin wuxuu arkay ninkaas wuxuu maalin walba shaqada bilaabi jiray salaada subax kadib. Wuxuu ahaa nin xamaali ah. Qofkan ayuu wax u qaadayaa, 1 dirham ayuu ka qaadanayaa. Qof kale ayuu wax u qaadayaa, 1 dirham ayuu ka qaadanayaa. Sidaas ayuuna ku shaqaysan jiray ilaa salaada duxaha laga gaarayo. Kadibna webiga Dijlah ayuu aadi jiray oo uu ku soo weys qaadan jiray. Kadibna 2 ragco oo salaatu duxa ayuu dukan jiray. Kadibna shaqadiisa ayuu dib ugu laaban jiray ilaa xilliga salaada duhurka laga gaarayo. Duhurka ayuu dukan jiray. Wiilka khaliifada wuxuu arki jiray markuu salaada dugto ninkaas, asaga oo jeebkiisa ka soo bixinaya jab rooti ah, kadibna la aadaya webiga si uu u soo qooyo, wuuna cuni jiray. Kadibna wuxuu aadi jiray geed agtiisa ku yaala si uu ugu nasto oo uu seexan jiray. Markuu hurdada ka soo kacana, shaqadiisa ayuu dib ugu laaban jiray ilaa qorax dhaca, wuuna bixi jiray. Wiilka khaliifada wuxuu rabay in uu wanaag u sameeyo ninkaas. Wuxuu askartiisii ku dhahay, iigu yeera ninkaas maskiinka ah ee maalin walba noloshiisa ay ku kooban tahay xamaaliga. Markii uu u yimaaday ninkii xamaaliga ahaa, wuxuu ku yidhi, nin yahow, waxaan arkaa adiga oo sidaas iyo sidaas sameynaya. Maxaad naftaada ugu dhibaysaa sidaas? Wuxuu ugu jawaabay, aniga waxaan daryeelaa hooyadayda iyo walaashayda. Hooyo waayeel ah iyo abaayo xanuunsan ayaan daryeelaa, waxayna soomaan maalin walba. Waan shaqeeyaa si aan maalinta dhammaadkeeda ugu gado cunno ay cunaan, waana u geeyaa. Wuxuu wiilkii khaliifadii ku yidhi, bal ka waran haddii aan ku dhaho, adiga, hooyadaada iyo walaashaadaba qasrigayga ayaad igula noolaanaysaan, waxaadna leedihiin xoolaha, maalka, dahabka, shaqaalaha iyo dhammaan waxa dhex yaala. Ninkii ayaa ku jawaabay, maxaad iigu samaynaysaa sidaas? Wiilkii khaliifadii ayaa ku yidhi, sidaas ayaan jeclaystay iyo in aan ciriiriga idinka saaro. Ninkii ayaa dhahay, oo yaa kuu sheegay in aan ciriiri ku jiro? Wiilkii khaliifada ayaa ku jawaabay, xaalkaaga iyo sida aad tahay. Ninkii ayaa ku dhahay, maya wallaahi, aniga ciriiri kuma jiro, xaalkaygana waan ku qanacsanahay, waana ku faraxsanahay waxa aan sameynayo, waana ku qanacsanahay noloshayda. Wiilkii khaliifada ayaa ugu jawaabay, oo ma doonaysid miyaa qasriga, xoolaha, dahabka, fidada, shaqaalaha iyo dhammaan waxa dhex yaala? Wuxuu ninkii ku jawaabay,
adiga ayaan kuu daayay waxaas oo dhan wiilka khaliifada muslimiinta. Markii uu ninkii tegay wiilka khaliifada inta uu fadhiistay ayuu ooyay, wuxuuna ogaaday xaalkiisa iyo faqriga dhabta ah ee uu asaga ku jiro. Wuxuu ku dhahay shaqaalihiisa qasriga, ha u sheegina qofna bixitaankayga. Wuuna ka orday qasrigii, dibna uguma uusan soo laaban. Markaas kadib waxaa la sheegay in uu u tagay nin tumaal ah, uuna u noqday shaqaale la tuma birta. wuxuu u tagay nin soo saarta quutalyoomkiisa maalinlaha ah, wuxuuna noqday qof cibaado badan, alle mar walba xusa, salaadiisa dhowra ilaa inta ay geerida ugu timaaday. khaliifadana wuxuu ka raadiyey meel walba, laakiin muusan helin wiilkiisa. Markii geeridiisa ay soo dhowaatay, wuxuu ku dhahay ninkii tumaalka ahaa ee uu la joogay, markii aan dhinto u sheeg aabbahayga dhimashadayda, una sheeg in aan ku noolaaday nolosha midda ugu fiican iyo midda ugu farxadda badan. Ninkii ayaa ku dhahay, waa qof ma aabbahaaga? Wiilkii khaliifada ayaa dhahay, aabbahayga waa khaliifada muslimiinta.